Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadeen dhammaantiin waan idin salaamayaa. Maanta waxaan la faguraynaa filimkan KGF Chapter 2. Filimkan waa filim ay dad badan sugayaan, fiiskiisuna uu ka galay. Filimkan wuxuu soo baxayaa bisha Abriil 14 Abriil 2022. filimkan wuxuu kamid yahay filimada ay coronavirus ku dib u dhigeen. Filimkaas waqtigaas soo baxaya 14 Abriil ayuu soo baxaya 2022. Saan wada ognahay actorkii Chapter 1 jilay ayaa jilay Yash. Waxaa ku jira oo kale Sanjay Dutt oo aad u taqaaneen. Sidoo kale waxaa ku jira Raj Firiam oo aad u taqaanaa Serafta. Ninkaas ayaa ku jira filimka caadi maaha, film action ah. Sanjay Dutt ayaa ku jira oo booska laadarka ah. Filimkana qayb weyn ka qaatay. Wuxuuna la walaalyahay qoyskii hore ee ku jiray qaybtii hore lagu dilay ayuu la walaalyahay. Ninkaas kalaabara oo argoosi iyo macdintii dib u soo celinaya qaybtii macdinta isagoo isku dayay ayuu KGF la dagaalamayaa. saa darteed filimku halkiiba kasii soconaya. filim xasaasiya weeye. insha allah waa iska sugaynaa. markuu soo dhacana waxaad kala degi doontaan insha allah telegramkayga myfanbroj. halkaas ayaad kala soconaysaan wixii filimo cusub. मैंने राक्षसों के बारे में सुना था। पहली बार एक राक्षस को देखा। ओ भाई क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूँ। मैंने राक्षसों के बारे में सुना था। पहली बार एक राक्षस को देखा। उसके बारे में कोई लिखना या पढ़ना नहीं चाहिए। उसका कोई नामो निशान इतिहास के पन्नों में नहीं रहना चाहिए। आई एम एनफोर्सिंग द आर्मी एंड साइनिंग अ डेथ वारंट ऑफ द बिगेस्ट क्रिमिनल इन इंडिया। कुदरत का करिश्मा तो देखो। उस रात 2 घटनाएं हुई। KGF भी मिल गया और वो भी पैदा हुआ।